dawladaha waaweyn ee wadanka jooga ma waxay doonayaan inuu wadanka noo dago dadka badba u haysto moodaya dawladaha waaweyn inaynu degnay inay rabaan in dagaalku inaga dhamaado inay rabaan in caynkan ma jirto waxay u socdaan inaad weligaa degin inaga wadankeena waxa lagu maamulaa maxay albandi saabic bandiga toddobaad ee United Nations ka xeerkiisa bandiga toddobaad ee United Nations ka xeerkiisa oo bandu saabic muxuu ahaa waa qofku isma maamuli kare hal la maamulo qofku isma maamuli kare ilma yara caruurta aabihi markuu dhinto maxaa la yiraahdaa xoolihiisa ma maamulan kare wuxuu u baahan yahay maxay wasiy cid maamusha oo meel gaarsiisa bandiga kani wuxuu qorayaa waa inta askar ma yeelan karaan oo istilayaan qoriya ayaan laga iibin dawladnimada xeebtooda ma ilaashan karaan cid kale ha ilaaliso wax kasta soo qabo waxa ma sameyn kartid ilaa iyo ogolaada mooyaane adiga ciidan kale lagu duldhigo wax kale oo waxaasi oo dhan ma jacayl la inoo qababa waxani ma aha jacayl lagu qabo ee waa destabilization waa inaad ku jirto inaad weliga soo kicin Soomaaliya meelaha yar ee nabadu ka jira waa meelaha laga yaabo in iyaga askartoodu imanin iyo inta iyaga la socota aanay ku badnayn kulay kama madhnee ayaa inta nabadu ka jirto qodobka saddexaad ee subversion theory uu tilmaamaa waxa weeyaan waa waxay dhahan crisis normalization tatbiic al-azma qofku marka dambe balaayada waa inuu arkaa inay nolosha ka mid tahay halkay Soomaalida la gaarsiiyay weeyaan qofku marka dambe balaayada waa inuu arkaa inay nolosha ka mid tahay halkay Soomaalida la gaarsiiyay weeyaan Soomaalidu dhibka ay ku jirto maantay maxaysan wax weyn uga soo qaadayn Soomaaliga in wax badan iba jiraan ma arko maalinta qarax yar ee dhacaw isdhaa wallahi dhib baa soo korodhay laakiin wuu la qabsaday wuxuu bartay inuu la noolaan karo dhibta dabeetana waxay dhahdaan crisis normalization qofka haddii la gaarsiiyo dhibta inuu la noolaan karo hadduu gaadho halkii la rabay ilaahi subxaanahu wa tacaala quraanka in badan buu dadkan kaga digay waxaan tilmaamaynaa ma aha wax wada tilmaamayo waa waxa istiraatiijiyad caalam ku dhigaan mesela أحجر بوجو قرين نينجاينيسا 2500 سنة كهر نولا سنة زوبا ليدا هذا وفيلسوف جنرال الله بوجيسو وويرا كوبان وحن في ليالي بقولي دور ستيتمنت أو كوبان إنه يهي أبوجاسي يا لوديجا علماء الاستراتيجية الدنيا الدراسية سودان باللوديجا ميليتري الدنيا دوران باللوديجا وكلمات كوبان ونيكا كني مركا ونين فيلسوف فنيجا استراتيجي أنا لغة دمبيو وحاول هذا إن إخضاع العدو من دون قتال هو أرفع امتياز بيدا cadawga inaad jabiso oo ku hoos yimaado adigoo aan la diriirin waa heerka ugu sarreeyay la gaadho buu yiri wal amal al askari huwa aqall turuq jawdatan li khida' al adu buu yiri military inaad cid u jabisana waa qaabka ugu hooseeya cadaw loo jabiyo buu leeyahay yani inaad ciidan iyo hub iyo dagaal ku jabisa waa qaabka ugu liitaba waa farsamada ugu liidata laakiin farsamada u sarreeysa waa maxay inaad ninka jabiso adigoo aan dagaalamin adoon askari kaaga dhiman ama waxba kaaga dhiman inaad jabin karto walidaalka wuxuu tilmaamaa in al a'zama bayna القادة ليس المنتصر في 100 معركة بل ذلك الذي لا يحتاج إطلاقا إلى القتال لينتصر هليجا أما جيسيجا وين هجامية يلا قدام بينكرا ما هبوا يرينك بقول جوابات جوليسته وانك عن دجال بوباهن سيو جوليست إنك عن دجال بوباهن سيو جوليستو وحن قضية نوت المام يا مركا وحيتي إلهي وحنا لي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد الاعتماد على نفس هدينه yeelan kari weyno oo cid kale inoo dejiso khudadkeen iyo road mapka iyo meeshaynu marayno abid guulaysan maysid dawladaha waaweyn horumarkoodu muxuu ku xiran yahay waxay dhaadaan kuwa xoog badan leh ee maanta dunida qaybta badan waxay u arkayaan horumarkoodu inuu ku xiran yahay dib u dhaca ummadaha saddexaad siiba ummadda muslimka sadaradeed qorshahooda waxa kamid ah inaad adigu weligaa horumarin ma qorshahooda kamid ah hay'adaha gaarka ah ee gaaladu maxay fuliyaan hay'adkooda dhabta ah waxay fuliyaan waxa kamid ah waxa la yiraahdaa سياسة التخريب subversion إن لقصة ومضها إنت كله إذا وحنا لنا ميل بينو فردنا أي ربنا إنه هورو مرسمينا أما أمد نقولنا أما ضد نقولنا أما الدولة نقولنا لكن وحكوكو حيرا عدان أقولين إن هذا حاسس ميسو مخابرات كعالمية وحا أوجو بدن اللوديجو ومحي subversion كو المخابرات العالمية وحا أوجو بدن اللوديجو سأمد له هجرداميو سأدد له دميو وحيد هذا نمط كستو صدح شيء لو sameeya horumarka dheer waa halkeeda inaagaanaysa saddexdaas shay maxay yihiin waxay dhaadaan ihbaad demoralization in dadka lagu qanciyo
muujiyo inaanay hore u socon karaynin in lagu yidhaahdo adiga imkaaniyaadkaaga iyo awooddaada iyo tamartaadu ma saamaxayso waxaasi adu waxaad u baahantahay bay ku leeyihin capacity building Soomaaliya 30 sano maxaa lagu soo waday Soomaaliya imka 30 sannadood waxa lagu waday maxay capacity building waa ma awoodaane waa la idin dhisayaa awoodiina la dhisayaa waa la idin dhisayaa awoodiina la dhisayaa kuwa dawladda yar haysta iqtisaadiyaadkooda waxa ugu badan ee lagu tawjiihiyaa waa اقتصاد السياحة ودقالها كوسالة يسمى يراهدان محل يراها توريسم سياحة ودكينا ميلو صو تكاكديها حيوانكينا هديلينا كرهسامي يجو انتو دي وي مريان حيجو دين واي سياحة ده واحد يراهدان إن كورمك اسمك اللي تشوفه وقيب توجه الرئيسية دقالة بربر كوكود عبنا آدم كمر كدقالة بربر بلا بل ودنا ده الإسلام جاو فيرسو ولا بولي حلا ده رحنت الضيورة ده دوني ده وقبضان يجو قابضة يريرة يقولوا ولا حلا ده رحنت الضيورة ده دوني ده وقبضان ولا ولا inay siyaaxa ka shaqeyso waa dhaqaale burbur sidiisa u yaala dunida waxay yiraahdaan ma horumaro umadaan industrial noqonin casrigeenu noolay ixbaadku waa maxay ixbaadku waxa weeyaan in adiga demoralization lagu sameeyo in laga dhaadhiciyo inaanad wax qabsan karin inaad dambayso inaad ku qanaacdo kaalmadiisa mooyaan inaad adigu hore u socon karin inaad ku qanaacdo kaalmadiisa mooyaan inaad adigu hore u socon karin kalabaad waxay yiraahdaan waliba waxa laga yaabaa inaad istidhaahdaan miyaa la maagaya maya dawladda waxay u leeyihiin group dhaqaalayahanna oo mas'alada ka fakara oo wadanada kale tala bixinta sidii loo dumin lahaa waa group dhisan maaha wax theory waa group dhisan waa kuwa ka waramayo kale convention of economic hitman ninkii qorayo kale oo kamid ah groupada tan bal waxaan idin sheegi karaa groupada qaar kood in xataa rag Soomaaliyeed ku jira dhaqaalayahanna Soomaaliyeed inay kamid yihiin markaan taas soo dhaafno waxa garan kartaa waxay ku sameeyeen Asia iyo numur sab'a dawladii la lahaa waa Tigerska ama shabeellada toddobada hal dawladda baa tala bixintoodii diiday iyadoo qura badbaaday intii taladoodii aqbashay waa la waayay dawladdaasi iska diiday tala bixinta reer galbeedka waa dawladee Malaysia qura diiday tala bixintii Australia ku bixinayay way guuleysatay mushkiladda way ka baxday lixdii qaatayna way jabeen shayga labaad oo ay sameeyeen waa maxay shayga labaad ay sameeyaan subversion kaahi waxay yiraahdaan waa zaczacatu istiqraar destabilization in wadanku crisis uu ka jiro had iyo goor inaanu degin in wadanku crisis uu ka jiro had iyo goor inaanu